السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتا شرفتا ماموستا يا كرامة مضن أنوات كوتشعلن هاي كسور دوادا كنال كينان عافيمات كي دريالكا عافيمات كو إن شاء الله ما أنت كجهالينو سدحان لما قشين هوين كدقهود دقهودا هداي مغرانا كتيلان يودان إسلامر كان إندهودا إلما يسكو سو تاكتو xanuun fara badanna ay dareento qalbigooda gubta saddexdan ma jeclaystaan haweenku inay dhagahooda ay maqlaan haddii ay maqlaanna waxa ay ka qaadaan inay markaa qalbigooda runtii ay xanuunjiso way gubto oo tilaanyo iyo murugo iyo ciil ay ku abuurto saddexdani waxay yihiin qodobka koowaad haddaynu si toos ah isku dul taagno waa ninka oo yiraahda I will move to somewhere else waa guurayaa oo waxaan u guurayaa meel kale ama magaalo kale ayaan u guurayaa iyadoo aanay markaa xurkufi jirin ama dhibaato jirin ayaa ninkii waxa uu markaa tilmaamay inuu u guuri doono magaalo kale iyaduna markaa ay halkaa deganaanaysay joogayso isla markaa aragoodu isku yaraan doono oo dhaqdhaqaaqoodu isku yaraan doono oo wada joogoodu isku yaraan doono isla markiiba haweenayda waxa hor timaata shaki iyo halkaa uu tagayo ma cid kale ugu tagayaa ma wax kale uu ka samaynayaa xataa hadday tahay arrinta uu guuraya arrin daruuriya oo shaqaa oo goob shaquu doonaya inuu ka shaqo galo ama ka hawl galo haweenaydu ma jeclaysato hadalkaasuna waxa uu ku abuuraa xanaf badan waxa uu ku abuuraa xataa iyadoo xaqiiqda og waxa uu guurayo og inay haddana su-aalo badan qalbigeedu isweydiiyo qodobka labaad waa ninka oo ku yidhaahda haweenayda ama maalintaa xilli inta uu ballamiyo fadhi ay iskugu yimaadaan si toosa ugu sheego yidhaahdaa I want to marry with another woman waxaan doonayaa inaan guursado haweenay kale casuumad buu sameeyey ama fadhi buu ugu yeedhay waxbaan kuu sheegayaa buu ku yidhi fadhigii markii laysla fadhiistay ee la casheeyey ama cuntada la cunay ka bacdi ayaa waxa uu sheegay inuu doonayo oo qorsheynayo inuu guursado xaas kale iyada markaas uma ballan qaadin inay kala tagayaan arrintaasu haweenayda qalbigeeda xataa hadday ninkeeda jeclay oo ninkeedu arrintan uu soo bandhigay iyo qaabkan uu talada uga weydiiyey wax kasta ay ku salbanaantay arrintaasu xaraf bay ku abuurtaa dhegteeda qalbigeeda way gubtaa mana jeclaysato weliba haweenka qaarkood waxaabay tallaabooyin bay qaadaan markaa laga yaabo inay guriga halis geliso ama markaa gurigu ku dumo ama nafteeda halis geliso ama gurigaba dhammaanteed weliba khusuusan sida haweenka caalamku ay u kala duwan yihiin iyo deegaanada ay ku kala nool yihiin iyo maraaxilada nololeed ee ku hareeraysana dabcan way ku xidhan tahay qodobkaana haweenku ma jeclaystaan in dhagahooda la maqashiyo waa kaa guurayaa meel kalean degayaa iyo waan guursanayaa xaas kalean kula guursanayaa labadaas waa laba kelmadood oo aada ugu aday qalbigooda ta ugu dambaysa waa ninka oo yidhaahda our time is over take your paper waa ninka oo taa ku jawaaba wakhtigeennii wuu dhammaaday waxaanan doonayaa inaan ku furo oo marka aynu sidaa nolosha aynu ku kala baxno wakhtigeennii wuu kala dhammaaday waxaan doonayaa inaan ku furo kelmadaasu sababtay doontaba ha lahaato wuxuu doonaba ninku ha u sababeeyo ama haweenayda oo xaasko markaa dhali weyda ha u sababeeyo ama khilaaf ha u sababeeyo ama wax kale ha u sababeeyo ama markaa ha yidhaahdo waa waddan kale ayaynu kala joognaa oo markaa isma soo gaadhayno oo markaa wuxuu doonaba ha u sababeeyee kelmadda haddii uu dhegteeda maqashiyo maalintaas haweenaydaasu gabal baa u dumay maalintaasu maalin qurux badan uma aha nolosheeda runtii uma macaanaanayso maalintaasu maalin xusuus ku samaysa qalbigeeda ay ahaanaysa sidaa laajigeen haweenka saddexdan aadka u xanafta badan inaynu ka ilaalino waa muhim xilli kastoo duruufo kastaa si kasta u keeneen ninku inuu ogaado qalbiga ibni aadanka inaan la jebin arrimahaasu waa arrimo haweenku ay runtii aada u karahsadaan oo aada u dhib badan intaas ayaynu kaga tegaynaa kilibkeenni ku saabsana saddexda aan la maqashiin dhagaha haweenka isla markaa aanay jeclaysan xaalad kasta iyo duruuf kasta oo sababatay aawadeed wasalaamu calaykum waraxmatullaahi
wabarakaatu.